sheekhuna soo dhawow waxaad la socotaa in la gaaray 10 dambe ee Ramadaan. Waajib miyaa in salaada jamaacada aad geeyo oo minaha salaatuleylka in jamaacada ku soo tukado ama guriga dhexdiisa intaan salliga dhigto Ilaahay meesha waa ku caabudi karaa oo ku tukan karaa. guriga ku tuko, qolkaaga ku tuko, sariirtaada agtiisa ku tuko. meesha rabtida ku tukan kartaa. qasam ma masaajidkana aadi. Okay, waasagaran sheekhuna ka waran xiliyada ugu fiican oo salaatuleylka la tukan karo waa goormee? tusaale ahaan 6 saac 7 saac 8 saac xiliyada ugu fiican waxa la tukan karo waa xilliga waa xilliga ugu fiican la tukada waa xilliga habeenkii saqda dhexe gaar ahaan 3 meelood habeenkii marka loo qaybiyo qaybta saddexaad maxaa laga wadaa adi waxa dhahdaa 8 saac iyo wixii ka dambeeya. Okay, aad uma santa cilmi badan ka faa'iiday ka waran sheekhuna haddii uu Ilaahay uu kulmiyo habeenka Laylatul Qadrka haddii aan la kulmo ducada ugu fiican aan ku duceysan karo waa tee xadiiska caanka waa naqaana Caaisha oo Nabi sallallahu alayhi wasallam weydiisay habeenka hadaa haleela maxaan ku duceystaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri waxa dhahdaa Allah waad ku celcelisaa ducadan oo ah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Okay sheekhuna sida aan ognahay salaatuleylka waa iska sunno marka imisa rakacayaan tukan karaa 5 4 in ka badan meeqa ma tukan kara qiyaasta ugu fiican oo macquulka la qaadan karo imisa rakacayaan tukan kara sheekhuna meeqa tukana 2 4 6 8 inta awoodid tuko insha Allah ta'ala inta aad awoodid habeenada masaajidka taraawixdan tuko tahajjudkan tuko labada ka qayb qaado insha Allah ta'ala. aad iyo aad uma santa sheekhuna Ilaahay wax ka barnaa in uu nawaafajiyo Laylatul Qadriga oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku leeyahay inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام